kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal wadar ahaantiinba meel kasta carreed ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii daraasaadka iyo cilmi baadhista oo habeen kastoo sabti soo galaysa aad ka dalacataan shaashadaha TSTV aynu ku bilownay daawadayaal maxadka daraasaadka caalamiga ah ee Ayub Institute of Sayla ayaa toddobaadkan daaha ka qaaday daraasadan shilin ku bixin daraasadan oo maxadku ka sameeyay maadada loo yaqaan jeegaanta ay ku midaysnaan jireen beelaha habar awal iyo habar jeclo maxadka daraasaadka caalamiga ah ee Ayub Institute of Sayla ee fadhigiisu yahay madaweynta gudban ayaa sheegay in suboodadii la oran jiray jeegaantu ay haatan laba u qaybsantay taasoo noqotay jeeg iyo aan oo marka la isku daro noqonaysa jeegaan magaca jeegaan oo ka kooban 7 xaraf iyo 7 midab ayay labada beelood ee bahwadaagta ku ahaa kala qaybsadeen daraasadan ayuu maxadku ku sheegay 4 xaraf ee u horeeya jeegaanta ee jeeg ay qaadatay beesha habar awal halka 3 xaraf ee u dambeeya jeegaanta ee aan ay qaadatay beesha habar jeclo maxadka daraasaadka caalamiga ah ee Ayub Institute of Sayla oo daraasaadkiisa sii wata ayaa sheegay in jeega ay qaadatay beesha habar awal uu yahay mid la wada yaqaan isla markaana sarifmaya halka aanta ay qaadatay beesha habar jeclo aanu samaynayn wax macno ah hay'adda aanta la haday ayaa shiray isugu timi ku la faguray sida ay uga shaqaysiin lahaayeen aanta waxaana hay'addu isla garatay in lagu daro xarafka oo noqonaysa aan oo isla markaana ay raadsato aanada qodobkan ayaa isku afgaran weyday beesha habar jeclo waxayna sheegtay in waqti xaadirkan aanay raadsan karin aano isla markaana ay isugu timaado fadhi kale si ay uga arisantay aanta kaga soo aaday jeegaanta fadhi labaad ay isugu timi beesha habar jeclo ayaa la soo jeediyay in xarafka aan xagga hore laga raaciyo b taasoo noqonaysa baan in marka aanta laga dhigo baan beesha habar wallahi ku qasban tahay inay uga timaado jeega ay ka goosatay jeegaanta beesha habar awal oo heshay xogtan ah in jeegooda aanu qabanayn baanka habar jeclo ayaa laftigeedu isugu timi shir ballaaran oo ay arrintaasi kaga tashanayeen waxayna isla qaad maadaama aan jeegooda aanu qabanayn baanka hay'addu inay u beddeshaan jeega lagu dalaco baabuurta kuna dalacaan jamhuuriyadda lafteeda si loogu jaahwareero maadaama ay beesha habar awal majraha u hayso waqtigan jamhuuriyadda beesha habar jeclo oo heshay xogtan ah in beesha habar awal ay u beddelatay jeegoodii jeega baabuurta lagu dalaco aantii ay biida ku darsadeen aan cidi waxba kala baxayn ayay hay'addu mar saddexaad shir isugu timi waxaanay go'aansadeen inay aantooda ku darsadaan beelaha mataanaha Arab iyo Garxajis taasoo marka aanta habar jeclo jeegaanta kaga soo hagaagtay lagu daro mataanaha noqonaysa mataanaan beesha habar awal oo ka xanaaqday mataanaanta saddex xagalka ah ayaa jeegeedii ay u beddelatay jeega siisaha ku dalacday jamhuuriyadda ay majraha u haysay jaahwareer ka dhashan ilaa haatan lagu jiro walina aanay dhinacyadu isla afgaran jihadii loo dhaqaajin lahaa jamhuuriyadda ay habar awal jeega ku dalacday maxadka daraasaadka caalamiga ah ee Ayub Institute of Sayla ee fadhigiisu yahay madaweynta gudban ayaa soo jeediyay in la isugu yimaado geedka xalinta khilaafaadka ee ku yaala madaweynta gudban ee Guulalla go'aanna looga gaadho xaaladda dalka daawadayaal haatan aan idinku wareejiyo stuudiyaheena dabadda xaruntiisa Balidhig iyo Xamse Xareed Fat Medical runta tima beerista ugu weyn bariga Afrika hadii foodu ku yaacday fogaadeen timahaagu madaxaagu ma fiiqmay furihii farxadaada iyo feerashadii Fat Medical ugu kaalay waxa kuugu diyaar dhaqaatiir Turkiya oo ku takhasusay beerista timaha iyo tigada Fat Medical waxa ku talaa magaalada Hargeysa istaanka basaska xiraawr fooqa Unionka dabaqa labaad ama kala xiriir 343925 wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa sheegtay in la xakameeyay qorshe ballaaran oo al-shabaab ku doonayeen inay ku qabsadaan dhul badan wasaaradda oo soo xiganaysay taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom General Stephen Townsend ayaa sheegtay in Itoobiyaanka ay si xooggan uga hortageen isla markaana uga guuleysteen dagaalka General Stephen waxa uu ka digay in al-shabaab ay qorsheynayaan in weeraro fara badan ay ka geystaan dowlad deegaanka Soomaalida sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya oo shalay baahisay warbixinteeda toddobaadlaha ah isbuucan dhexdiisa ay xubno ka tirsan kooxdan iyo ciidanka liyo booliska ku dagaalameen tuulada Laasqulun oo u dhow degmada Feerfeer markii dambe waxa dagaalka qayb ka noqday militariga Itoobiya labada dhinacna waxa ay sheegtay in mid walba khasaare gaarsiiyay midka kale dagaalkan cusub ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay uu socday dagaal u dhaxeeyay liyo boolis iyo al-shabaab kaasoo ka dhacay deegaanka Caato ee xuduudda gobolka Bakool uu la wadaago dalka Itoobiya
e-sarif money exchange sariflaha isdabamarinta lacagaha danabaysan iyo dadku taytirsadaanba dollar iyo cash e-sarif isticmaal amradiisa isku toosan zaad 326326 e-dahab 932639 e-sarif money exchange waa adeegsan kartaa 24 saac